haddaba markaynu hamiga koreeya ka warramayno waa arrin ay soo hoosgelayso aljiddu fi lumuur, qofkoo si hagar la'aana wax u qabta. waa arrin ay soo gelayso altarafuc can asakaa'iri waddanaaya, qofkoo ka hansarreeya waxyaabaha liiliita ama hooseeya. waa arrin ay soo hoosgelayso altumuux ila almacaali, qofkoo hiigsi fog ama hiraal fog leh, meel durugsan hir fog raba inuu gaadho ama se eego. idan waxaasoo dhan waxaa soo wada hoosgelaya culuwulhimma. ibnu اljawsi raxmat ullaahi calayhi fii kitaabihi sayd alkhaatir aan kelmad idinka soo naqliyo, waa culimmada runtii masaladan aadka uga warranta. wuxuu leeyahay bini aadamka hadday suurtagal noqon kari lahayd inuu cirka koro, wakhtigiisii dee cirka lama fanan jirin, iminkase dee waa tan rokityada iyo wax la dirayo, waa tan laysku hayaba safar siyaaxa ma laga samayn karaa. xidigaha sare qaar ka mid ah in siyaaxa loo tagaaba bini aadamka hamigiisu hadda ku jira, laakiin cahdigiisii dee cidduu shaaba ma jirin. cabbaas ibnu faraas miyaa la odhan jiray, ninkii caalimka muslimka ee koowaad ee isku dayaya inuu duulo, dee isna akhirkii waaba u dhintay intuu minaarad ka soo booday. baalal iyo waxbuu rakibtay, dhowr gooro horuu ku guulaystay. maalintii dambe magaaladoo dhan yidhi isu soo baxa, dabeetana meel sare ayuu ka soo booday, baalashii iyo waxbaa si uga furmoo ka dabacay, kadibna wadaadku dhabarkiiyo waxbuu ka jabayba wuu u dhintay. yacni markaa waxay ahayd nin baa duulaya, dee waxaan la arki karin bay ahayd. haddaba wuxuu leeyahay ibnuاljawsi, haddii la sawiri kara buu leeyahy ciduun hadday suurayn karto lilaadamiyi sucuudu samaawaat, in cirka la qaban karo haddii la sawiri karo, la ra'aytu min aqbaxi naqaa'is ridaahu bilard. waxaanu arkaa buu yidhi meelaha ugu liita inay ka mid tahay inaad adigu raalli ku ahaato inaad dhulka iska joogta buu leeyahy. haddii ragba cirka u kacay inaad adigu dhulka fadhidaa waa doqoniima buu leeyahy ibnuاljawsi. walow kaanat الnubuwa tuxasilu biاlijtihaad, haddii buu yidhi nebinimada dadaal lagu heli lahaa iyo howlkarnimiyo ninnimo, hadday nebinimadu wax lagu gaadho ay tahay, la ra'aytu almuqasira fii taxsiiliha fii xadiid. ninka nebi noqon kari waaye isagu iska fadhiya doqonnimaynu u arki lahay buu yidhi. hayra annahu idaa lam yumakin dalik fayanbaqii an yuطlaba almumkin. arrimahaasi hadda suurtagal maaha buu leeyahay casrigiisii, laakiin wixii suurtagal ee kasta in la raadaceeyaa weeyaan buu leeyahay aragtida toosani waxay tilmaamaysaa. idan ibn aljawsi raxmat ullaahi calayh fii kitaabi sayd alkhaatir wuxuu inoogu tilmaamayaa bini aadamka inaad meel soko hankaagu uu ku hadhaa inay nacasnimo tahay, liidnimo inay tahay, iyo shay laga koro laga weynaado. hadday jiraan rag cirka koray buu leeyahy, dhulka raalli marnaba ha ku noqonin adigu inaad joogto. wuxuu kaloo leeyahay haddii nebinimo ijtihaad lagu gaadhi karo, tan dambe iyadu suurtagal maaha. weligaaba dadaalay nebi ma noqon kartid. nebinimadu waa maxay? waa istifaa, allahu yastafi, ilaahay baa doorta. laakiin wuxuu leeyahay haddiiba ay suurtagal oo bini aadamintu ka fakaro la odhan lahaa dadaal baa lagu gaadhaa, inaad nebi noqonin waa nacasnimo buu leeyahy, ee waa inaad kor u kortaa si aad meeshaasi u gaadhi karto. haddaba ayuha alaxiba, masaladaynu ka warramaynaa waxa weeyaan insaanku wax kasta oo mumkina oo uu xaqiijin karo, wax kasta oo suurtagala oo uu xaqiijin karo fii ayi majaal, inaad raadacaysaabaa muhima. wax kasta oo suurtagala in la xaqiijin karo inaad raadacayso. ibnu اlqayim aljawsi raxmat ullaahi calayhi baasina wuxuu leeyahay caamadu dadweynaha waxay yidhaahdaan buu yidhi qiimatu kullu mri'in maa yuxsin. qof kasta qiimihiisu waa waxa uu hagaajin karo, waa farsamadu yaqaaniyo wuxuu yaqaano. waalkhaasatu taquul buu yidhi, laakiin dadka indheergaradka iyagu waxay yidhaahdaan buu yidhi qiimatu kullu mri'in maa yatlubu. qof kasta qiimihiisu waa hankiisa iyo halka uu hiigsanayo wuxuu doonayo. yacni caamadu waxay yidhahdaan buu leeyahy qof kasta waa intuu garanayo, laakiin khaasada waxay tidhaahdaa buu leeyahy qof kasta waa intuu ku haminayo iyo intuu ku warwarayo uu raadinayo. abu طayib almutanabbi, shaacirkii carbeed ee macruufka ahaa, almutanabbi dee waxaabuu isku dayay inuu nebi sheegto, waxoogaa buu ka tabadhtabadhsiiyey, markaasaa la xidhay, aakhirkii buu ka toobadkeeno uu ka soo noqday. mutanabbi baa wuxuu leeyahay gabyadiisa diiwaankiisa qayb dhan baa ku jirto aad u tiro badan
oo kaga warramayo hamiga sare iyo hanka sare iyo qofku meeshu walam ara fii cuyuubi nnaasi cayban ka naqsi alqaadiriina cala tamaami buu leeyahy maan arag buu leeyahay ceebta bini aadam ceeb ka liidata qof wax awoodo hakradoo meel hoose jooga qof wax awoodi kara oo haddana aan samaynaynin ceeb ka liidata anigu maan arag buu leeyahy